tababarkan ayaa ku saabsanaa sida loo dejiyo qorshaha istaraatiijiyada dheer ee axsaabta siyaasadeed ee dalka waxaana ka qayb galay xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira waxaana soo qaban qaabiyay macadka Sibam tababarkan waxaa bixinayay madaxa macadka Sibam Maxamed Muqtaar waxaana uu sharaxaad ka bixiyay waxa uu ku saabsanaa tababarkan ka qaato arinta loo yaqaan adkeynta xisbiyada hadda laga diiwaan galiyay dalka gaar ahaan xisbiyada iska diiwaan galiyay guddiga doorashooyinka madax bannaan qaranka waxaan u qabanay maamulada xisbiga dadka maamulo ujeedadana waxay ahayd in la baro sida loo sameeyo qorshaha dheer sida aan naqano wadanka iyaga wuxuu ku jiraa sidii ugu guur lahaa xisbiyo badan haddii la yiraahdo waxa la filayaa inay doorashooyin dalka dhacaan xisbiyadaas waxay hamigooda ku wada yihiin ilaa ay hadda intii diiwaan gashay oo halkan ka soo qayb gashay waa 35 hamigooda wuxuu yahay inay dalka hogaamiyaan si ay dalka ugu hogaamiyaan marka laftigooda waa in ay maamulkooda ay hagaajiyaan anaga waxaan macad ka shaqeeya arrimahaas marka waxaan siinaynaa tababar oo ugu talagalnay sidii ugu xoojin lahaa maamulka gaar ahaan sidii u degsan lahaayeen waxa loo yaqaan qorshaha dheer ama strategic planning qaar ka mid ah matalayaasha xisbiyada ka qayb galay tababarka ayaa u mahadceliyay macadka Sibam waxaana ay sheegeen in ay wax badan ka faa'iideen tababarkan uu soo qaban qaabiyay macad seminaarkan maanta meesha ka baxay seminar muhiim inuu yahay arkaa dhinacyo badan faa'iido u leh مثلا waxa isugu yimid axsaabtii waa isugu timid waa la isku arkay waa la isku bartay marka koobaad oo dad baa isweydaarsaday aragti iyo barasho dhinaca kale barnaamijka xisbigan wuxuu ku saabsanaa barnaamijkan qorshaha ah waxa weeye wuxuu dhisayaa axsaabta waxaan ka socdaa xisbiga Ilays barnaamijkan saaka oo nimid wuxuu ahay barnaamij guul ah oo ku cusub xisbiyadii meel fiican ay kala qabsadeen macadkan Simab waan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ay saakay noo u ifiyeen macnaha waxyaabaha badnaa ee naga dhinay waxaan rajayn doonaa inay nala qaybsan doonaan xogta badan ee ku daahsoon ay noo hayaan waxaan halkan ugu mahadcelinayaa macadka Sibam runtii waxay noo keenan seminar aad u wanaagsan magacayga waa Cabdi Cali Maxamed waxaan ku matalay xisbiga shaqaalaha Soomaaliyeed Somali Labour Party runtii training waxay ugu muhiimsan oo laga hadlayo strategic plan maadaama xisbiga uu leeyahay aragtiyo kala duwan marka sidee lagu dhisaa strategic plan ayaa hadda oo nooga hadlay facilitatorka ama fududeeyaha oo aan gudoomiyaha runtiina macadka Sibam waxa leeyahay aad u maasantiin waa arrin active aad u wanaagsan oo loo baahan yahay in aad iyo aad loo sii kordhiyo sida gudoomiyaha uu sheegayo kale in hore loo sii wadi doono kaas oo ka qayb qaadanaya capacity building bulshada maadaama xisbi nidaamka xisbiyada fog loo socdo